dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee sharafta leh halka ka soo qayb galay shirkan aanbooyda ciidamada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudane madaxweyne maaho iyo hogo tasaale fara badan ayaa halkan laga sheegay. waxa markaa anigu aan odhan lahaa waxa weeye ma hadhin hadal la is yidhaahdaa. waxaa qiiro igelisay dhalinyarta halkan isugu timi dhalinyarada halkan isugu timi ee iyagoo saf u socda halkan soo galay ee ka hadlay qiirada ku jirta ayaa runtii diiro fara badan la gelisay. waxaan filayaa madaxweyne in badan baan anagu caruurta ka weynahay, gaar ahaan anigu waxaan sheegi karaa keliya waddankani sida uu ahaa markaan anagu koraynay iyo sida uu noqon karo, ama xagga quruxda ha noqoto, ama xagga nabadgelyada ha noqoto, ama xagga isku filaanshaha iyo sharafta ha noqoto. intiiba iyadoo dhacday ayaan anagu halkan dib ugu soo noqonnay. 1973 gabadh Ingiriis oo noo dhigi jirtay iskuulka Hargeysa ayaa waxay timi Muqdisho. isla markaa waxa soo baxday heestii ma ogtahay magaalada Muqdisho ee joogna. halkan bay timi nagu soo noqotay. waxay tidhi 18 waddan oo Afrika ah ayaan ka soo shaqeeyay. Muqdisho magaalada la yiraahdo magaalooyinka ugu qurux badan Afrika intaan arkaan weeyaan bay tidhi. magaaladani waxay magaalo bilic leh oo la isla gartay inay nadiif tahay oo ay dhisan tahay lagana shaqeeyay. dhinaca nabadgelyada magaaladan Muqdisho maanta arkaysaan anagu waxaan imi 1976 maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan ku jiray meel u dhow hospitaalka Digfaar. bas baan damcay inaan qaato iyadoo ay 10kii habeenimo meelaha tahay. waxaan ka qaatay Shabeelle, hoteelka Shabeelle agtiisaan ka qaatay. waan cusbaayo waan garan waayo Digfaar baan ku socday. warshada wuxuu geeyay warshada baastada. markaasuu yidhi halkan aan ugu dambaysana waan ka dhaadhacaynaa gaariga. markaasaan soo niga xaggan ku socday waad habsaatay buu yidhi, waad halowdee baaskuna halkan uu heenayaa buu yidhi. waan iska soo lugeeyey habeenkii oo dhan baan soo socday. aroornimadii waxaan imi aqalkii aan ku jiray Digfaar agteed ahayd. yacni nabadgelyada waddanka taallay ayaduna sidaasay ahayd. dhinaca sharafta iyo waxyaalaha dalkani qabsan karayay oo qabsanayay 10 sano dabadeed 76kii Soomaaliya 10 sano dabadeed magaalada Washington DC waxaan ka soo raacay anigu Somali Airlines baan ka soo raacay. waxa ay keentay Rome. wax yar baan joognay aroornimadiina halkan Muqdisho na keentay. markii aan dib sii socdayna iyadan sii raacay. tilmaantu waxay tahay waxa weeye dalkani waa dal isku filaan kara. waxaasoo dhan waxa sii weelaya waxa weeye khayraadka waddanka ku duugan, ama bad ha noqoto ama beri ha noqoto. dhalinyaro waxaa maanta aad la iskuulalaadiin ee aan u wadooyin laanahay, ee aan u biyo laanahay, waa nabadgelyo la'aantana markii hore innagaa bilowna haddaan Soomaali nahay dad kaloo fara badan ee dogobada ayay saareen, welina waa saarayaan. maanta waxa aan heshiis ku nahay